الرحيم ومركلة إيو فريميه هالجماعة كسعدي الشعب جينا أما الشعب الصومالي وقادينيا الشعب الصومالي ستيت وحان مركن كوب الله بيا مهضنق كاسو مرر بدن دقن كينا أن كحبنين مركب قفكو وحفي عن قبته إن لو مهضنقو أنا قدان شوحنا هاي أرنتها ما يلون دقن كينا إن كسو كردان شعر هاي قفكي وحفي عن قبته إن مهد سند لي هذا قفكي دليل كان لي هذا أرنتها سد دليل بيلا هاي waxaan maanta ku bilaabay inaan u mahadnaqo dadkii nagala qayb qaatay arrinta wada hadallada nabadeynta muxuu ahaayay dalkeena wada hadalkii jowxo iyo dawladda Itoobiya doorka weyn ka qaatay soo dhaweyntii ciidanka soo raridoodii waqtiga badan iyo xooga badan iyo hantida galiyay oo ugu horeeyo wasiirka federaalka Axmed Shide oo dhabaantii hawl aan ilaawi karin ka geystay arrinta wada hadalka iyo arrintii soo dhaweynta wixii hawshii qiimaha badneed shalay ka dhacay jijiga diyaarinteeda doorka ugu weyn lahaa waxaa sidoo kale mahad iyo amaan mudan dawladda ismaamulka Soomaaliyeed ugu horeeyay madaxweynaheeda Mustafa Cumar dadaalkii wada hadallada iyo nabadda ONLF iyo dawladda Itoobiya ONLF iyo dawladda gobolka dhexmaray sidaas oo kale soo dhaweyntii iyo taakulayntii iyo gacansiintii ciidanka xoreynta ogaadeenaya ay yimid madaxdii ka soo horeysay kaadirkii ka soo horeeyay hawlgalkii gudaha ka dhacay marka iyaguna waxay mudan yihiin ammaan diiwaanka loo geliyo sidaas oo kale waxa ammaan aad ugu ballaaran leh waxgaradka iyo odayada dhaqanka ay shalay soo dhaweynta qiimaha badan u sameeyay ee ugu horeeyay garaad kulmiye salaadiinta ugaasiyada garaadada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed Soomaalida ogaadeenaya reer Jigjiga ee gobolka Faafan shacabka gobolka Faafan gabdhaha dhalinyarada iyo dhammaan bulshada ku nool Jigjiga iyo gobolka Faafan sidii ay salka uga soo ruqeen shalay ay u soo dhaweeyeen ciidanka xoreynta ogaadeenaya taa waxay daliil u ahayd in sababta aan dhiigga u daadinayna sax ahayd in qalbiga halgamaaga iyo nafti huraha dhimanaya ama shahiidaya iyo shacabka aamusan inay isku xidhnaayeen waxa daliil cad ah shalay wixii dhacay arrintaas inaana khaldanayn bay tilmaano tahay inaanu sax u dhimaynaba u halgamaynaba sax iyo tilmaano tahay waxay tilmaano tahay inaynu isku wada marin doono oo qulubteena iyo qalbigeena iyo maskaxdeena iyo danteena iyo ujeedadeena iyo dalkeena iyo asalkeena iyo waxa shacbi ahaan inaynu hal meel u jeedno hal meel ka nimid hal meelna danteenu tahay inay iyo cadeenu tahay arrintii shalay dhacday aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa hogaaminta jabhadda xubnaha jabhadda naftooriyaasha dhammaantood mahad bay u celinayaan shacbigii iyo siyaasiyiintii Soomaaliyeed iyo xukuumadda gobolka doorka ay ka qaateen fariinta afraad waxa weeye maanta soo dhaweyntii ugu ballaarneed 30 bisha dhacaysa bisha 30keeda ayay dhacaysa waa marka guddoonka jabhadda guddoomiyihii xogiyihii guud guddiga fulinta golihii dhexe naftooriyaashii xubnihii kaadirkii hawlwadeenkii dibadda markay imaanayaan wey waa maalinkay jooxo way wada timid la dhahayo wey maalinka maxaa marka la rabaa waa inuu rikoorka la jebiyo banka xarafa wayna dhacdo wey gobolka Faafan gobolka Jarar gobolka Erar iyo gobolka Shineyle wixii soo gaari kara iyo wixii fursad u haysta inuu ka soo qayb galo shacabkeena waxaan u baaqaynaa maalinkaas soo dhaweynta in si qiimo leh looga qayb qaato oo la muujiyo shacbi midaysan shacbi iyo jabhad iyo dawlad ismaamula oo midaysan saddexdaa dhardhaar oo is haysta inaan nahay isku meel u soconno gacmahana is haysano isku midna nahay guul wada jirana aan wada gaari doono shacabkeena si wada jira ugu adeegi doono si ay u cadaato intaasoo gacmaha haysta jabhadda joogta muxuu ahaayay gudaha dalka iyo maamulka xukuumadda iyo shacabka saddexdaas waa soo dhaweynta ugu ballaaran baan ka rabnaa gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo xilka weyn saaran yahay marka looba jooga bali kartida shacbiga la rabo maalinkaas imanaysaa waxaan ku soo khatimayaa fariinta shanaad anoon dheereen
dhibaatooyinka dhacdhacahaya ee dadka Soomaaliyeed dadka Oromada dhacay dhex marahaya waan ka xunahay ayaantan dib u soo noolaaday wixii markaa jabti ka dhacay akhbaaraha laga soo sheegayo Tulli Guuleed dhibaatadii iyo dagaaladii ka dhacay Mooyaale waxa weeye laba shacbi oo walaalaanahay inaan gacmaha isqabsanno oo inaan isku mashquulin oo inaan lugta isqabanin oo inaan waqtiga iska luminin oo inaan dhalinyarada iska laynin oo inaan waxgaradka iska laynin oo inaan xoogga iyo dhaqaalaha iska luminin baa inoogu jirtaa dadka Soomaalidana waxa weeye hal midun baa dhici doonta insha Allah inaynu qolada gacmaha isqabsanno oo heshiino in meelo colaad ku jirta meelo nabad ku jirta noqon mayso waynu isugu iman waynu soo afjari colaadaas ma ogolaanayna dadka Soomaaliyeed inay qaarna dhibaato iyo colaad ku jiraan qaarna inay ka warhaynin dawladda gobolka Oromiya waxaan ka doonaynaa maadaama dawladda Soomaalida hadda ay soo kabasho ku jirto oo ayna awoodeedu wada gaarin dhammaan dalka xilka ugu weyn dawladda dhexe ee walaaladana Oromada madaxda ka yihiin iyo dawladda ismaamulka Oromiya ayaan ka rabnaa hadday hadda ceeb halka ka timaado xaggooda u soo rugmanaysaa madax badan oo Oromiya oo arrinta ka garaabaysa aan aragnay jabhadda xoreynta Oromiya waan ka kulannay duqay maamulka kamida iyo siyaasiyiin waan kulannay aad bay uga yihiin gacmaha inaan isqabsano wada xalinay doonayaan laakiin dadka Soomaaliyeed iyaguna inay wada tashadaan oo isku xidhnaadaan oo dhibaatooyinkooda wada jir u xaliyaan weeye walaalaheena inaan gacmaha isqabsano weeye in dana kale iyo dadyow kale isku keen mashquuliyaan ceeb bay ku tahay dadka Soomaalida iyo dadka Oromada iyo shacbiga ku shitiga ah ee geeska Afrika ku nool ceeb bay noo tahay dad baa fariimo colaad iyo fariimo caytan iyo meelaha marinaya waxaan u arkaa dad aan garasho dheerayn oo iska soo shaarkeena ama shaar Oromo huwanaya ama shaar Soomaaliya waxay la tahay mar dhow soo aftirmaysa arrintaas jabhadu markay ay timaado ay xafiisyada furatana way ka howlgeli si wada jira inaga iyo maamulka iyo dawladda dhexe iyo maamulka dhigeena ee ummadda Oromada iyo dawladda dhexeba meel baynu saari marka hal adkaysto hal isku duubnaado hal iska warhayo hal la taageero muxuu ahaay jooxo hal la taageero maamulka hal la taageero wada jirka hal la taageero dawladdiska hal la taageero difaacidda xaqeena hal la taageero isku duubnida shacabkeena aad iyo aad u mahadsantiin